Trift Bridge waa mid ka mid ah kuwa ugu khatarta badan biriijyada dunida. Wuxuu ku yaalaa dalka Switzerland, caasimadiisa Bern, waxaana la dhisay sanadii 2004. 5 sano kadib dib u habeyntii ugu horeysay ayaa lagu sameeyay. Dhibka ugu weyn ee biriijkan waa ruxanka saayidka ee dabayshu keentay, taasoo maritaankiisa ka dhigtay mid halis ah. Inkastoo dib u habeyn lagu sameeyay, haddana waa mid ruxma. Biriijkan ayaa ah biriijka ugu jooga sarreeya uguna halista badan Yurub. Balliciisa ayaa ah 3 fiit halka dhererkiisu yahay 560 fiit. Maalmahan wuxuu noqday mid aad u soo jiita dalxiisayaasha. Badanaa waxaa lagu socon karaa marka jawigu degan yahay, dabaylana aysan jirin. Balse haddii aad ku dhiiratid inaad korto biriijkan halista, waxaad ku raaxaysanaysaa muuqaalka quruxda badan ee harada iyo neecawda hawada sare. Waxaa kaloo wax yar u jira korna aad ka arki kartaa dalka Talyaaniga. Capilano Bridge waxa uu ku yaalaa dalka Canada. Bridgekan ayaa loo tixgeliyaa inuu ka mid yahay biriijyada halista ah, dalxiisayaashana aadka u soo jiita. Waxa uu dul maraa webi, waxaana ku yaala dhul dabiici ah oo aad u qurux badan. Waxaa ku wareegsan kaymo cagaaran. Bridgekan ayaa la furay sanadii 1956. Dhererkiisa ayaa 460 fiit. Habka loo dhisay ayaa ah mid aad u fiican, wuxuuna qaadi karaa culayska 96 maroodi halkii mar. Biriijkan ayaa si nabadgelyo ah looga gudbi karaa haddii si taxadar leh loo maro. Biriijkan ayaa aad u dheer, waxaana sameeya marka ay dadku marayaan. Haddii aad tahay qof ka cabsada meelaha dhaadheer, waxaa laga yaabaa in aad muddo yar ku dareentid wareer iyo welwel. Biriijkan Capilano ayaa ah mid si gaar ah loo leeyahay, waxaana sanad walba ka gudba 900 oo kun oo dalxiisayaal ah. Meeshan ayaa soo jiidata indhaha dalxiisayaasha, iyagoo waqti ku qaata beer weyn oo ku taala biriijka dhinaciisa. Hussaine Bridge biriijkan waxa uu ku yaalaa dalka Pakistan. Biriijkan ayaa dadku aad u xiiseeyaan, balse dhibaatada waxaa keena dabaylaha ka dhaca halkan. Biriijkan ayaa lagu dhisay xadhko adag iyo alwaaxyo si tartiib ah u dhammaanaya. Biriijkan ayaa waqti hore la dhisay. Dadka degan halkaani ma xusuustaan waqtiga saxda ah ee la dhisay biriijkan. Waxaa lagu dhisay alwaaxyo kala durugsan, kuwaas oo qofku ka dhici karo. Waxaa mararka qaar ka dhaca dabaylo aanan istaagayn. In laga gudbo webigan adiga oo maraya biriijkan ayaa ah mid aad u halis badan. Biriijkan Hussaine ayaa ku yaala tuulo ay isku magac yihiin biriijka. Dadka degan tuuladan ayaa xusuusta ugu yaraan 10 qof oo ku geeriyooday biriijkan. Carric-A-Rede Bridge wuxuu ku yaalaa gobolka Outram ee waqooyiga Ireland. Bridgekan ayaa Ireland ku xidha jasiiradan yar ee Carric, taas oo caan ku ah kalluumaysiga. Waxaa dhisay biriijkan dad kalluumaysata ah, waxayna u dhiseen si ay ugu gudbaan jasiiradda ugana soo kalluumaystaan. Waxaa mari jiray dadka geesiyaasha ah. Haddii aad ku turanturootid, waa meel aad naftaada ku waayi karaysid. Kalluunka oo yaraaday awgeed waxay sababtay in biriijku noqdo mid aan cidina isticmaalin. Si kastaba ha ahaatee, biriijku dhowr sano ka hor wuxuu noqday mid ay yimaadaan dalxiisayaasha ugu badan Ireland. Lacag badan ayaa loo ururiyay si dib u habeyn loogu sameeyo biriijka. Waa la adkeeyay isagoo lagu dhisay alwaaxyo tayo leh, haddana waa mid si saa'ida u ruxma. Sanad walba waxaa yimaada dalxiisayaal ka badan 250 kun oo qof si ay ugu damaashadaan una bixiyaan lacag yar. Biriijkan ayaa gelitaankiisa lagu bixiyaa lacag dhan £5 oo khoyla. Mid ka mid ah biriijyada dunida ugu khatarsan wuxuu ku yaalaa dalka Mexico. Biriijkan dhisitaankiisu wuxuu biloomay sanadii 1898, kaasoo ahaa wadada ugu dhow ee magaalada loo maro. Magaaladan ayaa laga qodi jiray macdanaha qaaliga. Dhisitaankiisii kadib ilaa hadda wuxuu ka mid yahay biriijyada ugu dheer dunida. Biriijkan ayaa ah mid adag, laguna dhisay xadhko bir ah, kuwaasoo waqtigii la dhisayay dunida ku cusbaa. Markii macdantii dhammaatay, shaqaalihiina shaqada joojiyeen, biriijku wuxuu noqday mid aan cidina isticmaalin. Biriijkan ayaa joogiisa sare ayaa soo jiita dadka isboortiska. Marka aad dul maraysid, waxa aad dareemaysaa in culayskaagu isdhimay garaafitiga yaraaday awgiis. Waxaa kaloo soo jiita dadka qaabka loo sameeyay dhagxaanta la qoray ee dhinac kasta ka xiga biriijka. Meeshan waxay aad caan ugu tahay sawir-qaadayaasha. Biriijkan ayaa leh buuro si qurux badan loo qoray, kuwaas oo leh muuqaal wanaagsan. Biriijka daanyeerka biriijkan ayaa ku yaala koonfurta dalka Vietnam, halka uu ku yaalo webiga Delta. Biriijkan ayaa loo dhisay si ka duwan biriijyada caadiga ah ee dadku maraan, waana sababta loogu bixiyay magacaan biriijkii daanyeerka. Waana mid ku habboon oo aad moodaysid in loo sameeyo in daanyeerku ku socdo. Biriijkan ayaa dadka deegaanku isticmaalayeen sanado badan.
biriijkan ayaa lagu sameeyey geed bamboo la dhaho kaasoo la jirida waaweyn laguna adkeeyey xadhko. qayb ka mid a biriijkan waxaa khasaba in aad isqaloocisid marka aad maraysid. biriijkan ayaa qayb dheer tahay qaybna gaaban tahay, ma lahan midka kale lamida. waqti kasta ayuu dumi karaa, waxaa laga maarmaan inaad kaba adag xidhatid. si kastoo biriijkan u xun yahay, haddana biyo ayaa ka hooseeya, haddii aad ku dhacdo aad ka dabaalan kartid. Iswae biriijkan ayaa la dhisay 150 sano ka hor, wuxuuna ka gudbaa haro la dhaho Towtan. biriijkan ayaa dhismihiisu ka duwan yahay biriijyada isagoon lahayn xadhko. biriijkan ayaa labada dhinac ku lahayn wax la qabsado marka laga gudbayo, taasoo biriijka ka dhigtay mid khatar badan leh. biriijkan ayaa joogiisu 2 jeer ka badan yahay jooga qofka. haradan ayaa leh dhagxaan afaysan, kuwaasoo dhibaato aad kala kulmaysid haddaad ka dhacdo biriijka. dadka qaar ayaa kala gudba alaabo culus, halka kuwa kalena ay ku maraan baaskiilado. waxaa biriijkan maalinkii si joogta uga gudba 100 qof. dhererkiisa ayaa 3940 feet. waxaa yimaada oo ka gudba dalxiisayaal badan iyagoo sawiro cajiiba iskaga qaada. Ghaza Bridge waxa uu ku yaalaa dalka Nepal. biriijkan qaabka loo dhisay waa mid aad la yaabayso marka aad aragto. waxa uu ku yaalaa meel aan ka fogeyn tuulo ay isku magac yihiin. waxaa loo adeegsadaa isu gudubka dadka oo keliyana kama gudbaan, marka qaar waxaa la mariyaa oo laga gudbiyaa xoolaha ay dhaqdaan dadka tuuladan degani. biriijkan ayaa ah mid aad u dhuuban, joogiisuna sarreeyo. biriijkan ayaa leh dabaylo si joogta u socda. dadka meesha degani waa kuwa la qabsaday biriijkan, balse dadka ku cusub aad ayay uga cabsadaan in ay 2 jeer oo isku xigta maraan, maadaama uu biriijku u muuqdo mid go'aya, ruuxana sameeyo badanaa, balse waxa uu leeyahay dhegag wanaagsan oo la qabsado marka la marayo. Iswae Chaka Bridge biriijkan waxa uu ku yaalaa dalka Peru. biriijkan ayaa leh magac aan caadi ahayn, halka dadka safraa u yaqaaniin magac ka duwan, kaasoo ah biriijkii xadhigga ahaa. markii ugu horeysay ee biriijkan la dhiso waxay ahayd xilligii boqortooyadii Inka. sirta ka dambaysa cimri dheeraanta iyo adkeysiga biriijkan waxay tahay waxaa lagu dhisay xidido aad u adag iyo xadhko laga sameeyay caws. dad badan ayaa boqortooyada kula taliyay in lagu dhiso xadhig keliya biriijka. biriijkan ayaa joogiisu yahay 220 feet. waxa uu dul maraa webi lagu magacaabo Amak. dhererkiisa ayaa 118 feet. welina waa isticmaalaan dadka deegaanku. sanad kasta bisha Juun waxaa lagu sameeyaa dayactir. biriijkan qadiimka ayay dalxiisayaashu si joogta u maraan. biriijkan ayaa halis ah, waxaana laga maarmaan inaad si taxadar leh u socoto. biriijkan badanaa ma ruxmo, haddii si aad lumiso isu dheelitirankaaga inaad biriijka kusii socotaa waa ay kugu adkaanaysaa. Ghaza Bridge ama biriijka dhalada ah. biriijkan ayaa ah biriijka ugu khatarta badan uguna cabsida badan biriijyada dunida. waxa uu ku yaalaa dalka China. biriijkan ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay biriijka ugu dheer biriijyada noociisa ah. dhererkiisa ayaa 1410 feet, halka joogiisu yahay 980 feet. waxauna isku xidhaa 2 buurood, waana halka ay ku taalo beerta lagu magacaabo Dianshi National Park oo ah halka lagu duubay filimka Avatar. biriijkan ayaa ballac ahaan isku jira 20 feet, waxaana gashay dhisitaankiisii lacag dhan $3,400,000. biriijkan ayaa ka samaysan 99 lakab oo muraayad ah, kuwaasoo laga dhex arki karo dhulka. muraayadahan ayaa ah kuwo aad u adag, xitaa aysan xabadu karin. biriijkan ayaa ah biriijka ugu caansan China. dadka ayaa aad u xiiseeya kuna gala sawiro cajiib ah, halka kuwa kalena ay ku bartaan ciyaaraha yoga. aroosyada cusub ayaa ku gala sawiro xasuus ah.